kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal dhammaantiinba meel walbo daclada adduunka aad ka joogtaan. halkani waa warar sugan 24 oo aad ka dhagaysan kartaan wararka dunida ugu doorka roon. qodobada aad maanta ku maqli doontaan wararka iyagana waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo aanan u dabaaldegin 60 guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Qoorqoor oo magacaabay guddi qabanqaabada doorashooyinka golaha deegaanada ee Kalkacyo. nin ku hubaysnaa walxaha qarxa oo ciidanka ammaanka ay ku qabteen Galmudug. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Mudane Faysal Cali Waraabe oo sheegay midnimada Soomaaliya inay ku xiran tahay Jabuuti iyo Jigjiga. siyaasi ka tirsan maamulka Hirshabelle oo u geeriyooday caabuqa coronavirus oo la shaaciyay. dowladda Bangladesh oo dil xukuna ku fulisay siyaasi horey u dilay madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaasi. iyo qodobada kale ku saabsan coronavirus Mareykanka oo horkacaya dalalka ay ugu dhimashada badan tahay dadka uu soo ridinayo caabuqa coronavirus ayaad ku dhagaysan doontaan. ku soo dhawaada wararkaasi oo imikana faahfaahsan. munaasabad lagu maamuusi lahaa 60 sano guuradii ka soo wareegtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa loo baajiyay khatarta ka dhalan karta caabuqa coronavirus maadaama kiisas ka mid ah cudurkaasi laga helay gudaha dalka Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay saameynta coronavirus ay kaliftay in la baajiyo munaasabadahaasi oo la doonayay in la qabto. maanta oo ay ku beegan tahay 12 Abriil sanadka 2020 waxaa ka soo wareegtay muddo 60 sano ah kadib markii la aasaasay militariga Soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in ay muhiim u arkeen in loo hoggaansamo talooyinka caafimaad ay bixiyeen waaxda caafimaadka iyo dhaqaatiirta si loo badbaadiyo xanuunka ku faafaya sida xawliga ah gudaha dalka Soomaaliya. wasiirka uu ka hadlayana waxaa ka mid ah hadaladiisa. hambalyadaas oo ku aadan 12 Abriil sanad guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan runtii aad u bogaadiyo dadaalada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan. tan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ciidanka xoogga dalka ay aad u dardargeliyeen la dagaalanka cadowga gudaha ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay inay ka xoreeyaan deegaanada ay runtii dadkii miyiga ahaa ee beeraha iyo xoolaha tacbanaya ka xoreeyaan inay ku soo aado sanadkan. aad iyo aad runtii aan runtii u bogaadinaya. sidaas darteed waxaan leeyahay nin hambalyo. waxaan rabaa fursaddan inaan kaga faa'iidaysto inaan runtii u diro fariin u diro wacyigelin ah. sida la soconno cudurkan runtii coronavirus dhammaan bulshada caalamka dagaalka ba'an ku hayo. waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto inaan u diro dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan meel walba ay joogaan, kuwa furumaha joogo, kuwa saldhigyada joogo iyo kuwa talisyada joogaba in runtii ay qaataan waanada ay soo jeedinaysa wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka ee dhakhaatiirta Soomaaliyeed ay soo jeedinayaan. in aad runtii waa cudur halis waa cudur jira. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay u direen hambalyo ku aadan sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii didibada loo taagay 12 bisha Abriil sanadkii 1960. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxaa lagu magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka degmada Kalkacyo ee gobolka Mudug. guddiga uu magacaabay madaxweyne Qoorqoor ayaa ka koobnaa 13 xubnood kuwaas oo laga sugayo in ay muddo 90 cisho gudahooda ay ku soo dhisaan golaha deegaanka degmada Kalkacyo ee Galmudug. wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Qoorqoor ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubnaha guddiga ay ka reeban yihiin in ay isku soo sharxan ayna ka mid noqdaan golaha deegaanka isla markaana shaqadooda oo kaliya ay ku ekaadaan.
maalmaha fooda inagu soo haysa ayaa waxaa la filayaa guddiga inay howlahooda shaqo ay ka bilaabaan magaalada Kaalkacyo halkaas oo loo xilsaaray in ay ka soo dhisaan golaha deegaanka ee degmadaasi war-saxaafadeedkaasi oo ina soo gaaray ayaa waxaa ka mid ahaa guddiga qabanqaabada doorashooyinka deegaanka ee degmada Kaalkacyo sida tan 1 Saciid Salaad Cilmi gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Maxamed Cali Xirsi gudoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada Cabdinaafi Maxamuud Diiriye xoghayaha guddiga Salaad Maxamuud Cabdulle xubin Sahal Aadan Cilmi xubin Khaliif Axmed Shirwac xubin Cabdiraxmaan Ciise Cigaal xubin Axmed Warsame Cigaal xubin Cabdiraxiim Maxamuud Yuusuf xubin Cabdulqaadir Cabdikariim Maxamuud xubin Cabdulqaadir Cabdi Cali xubin Saciid Maxamuud Gardaani xubin iyo Axmed Maxamuud Xaanshi oo ah isna xubin wararka naga soo gaaraya Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in xalayto ciidanka ammaanka ay gacanta ay ku dhigeen nin doonayay inuu isku qarxiyo magaaladaasi saraakiil ka tirsan hay'adda ammaanka ayaa xaqiijiyay in ninkaasi ay qabteen oo haatan uu ku xiran yahay xabsiga Dhuusamareeb sidoo kale laamaha amniga ayaa sheegay in ninkaasi laga soo diray degmada Ceel Buur isla markaana qaab sahmina inuu u joogay gudaha magaalada Dhuusamareeb ciidanka danab ayaa sidoo kale la sheegay in ay qarxiyeen waxyaabihii qarxayay ee ninkani uu doonayay in uu gudaha u soo galo maamul goboleedka Galmudug halkaasina dhibaato uu ka geysto sanadkii la soo dhaafay 2019 ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada maamulka Galmudug gaar ahaan kuwa ahlu sunna wal jameeca ay gacanta ku dhigeen nin doonayay in qarax ismiidaamina uu ka geysto degmada Guriceel gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u coday Somaliland mudane Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in midnimada Somaliland iyo Soomaaliya ay ku xiran tahay haddii ay horumar ka naqanayaan oo ay horkacayaan Jabuuti iyo Jigjiga waxa uu sheegay in taasi ay horseedayso in la helo shantii Soomaaliyeed mudane Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay arrinkaasina waxa uu yiri war midnimada Soomaaliya waxa keenay aniga kula hadlay reer awaarana marka tii kari waayay ayaan dhahaa Soomaali shanta Soomaali la keeno Soomaali galbeed hal ku soo dartay Jubileed Soomaali aqli maanta oranaya Muqdishona la walaalo Jijigana wadan kala ha noqoto oo Itoobiya ka noqoto aqli ma Jabuutina wadan kala ha noqoto adna xamar isku xig waxaan nimanka anu waan ogolahay fikradda hadaan soo celinna waliba arinta waxaan u dirayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo Ismaaciil Cumar Geele diyaar baan u nahay in shantii Soomaali isku yimaadaan shantii Soomaali maanta meel iska dhow yihiin ma jirtee hay isku yimaadeen oo 30 milyan marka Soomaali noqonaysa geeska Afrika 30 milyan oo canan qura leh si aanu ku sheekeyn jirnay aan ku heesi jirnay ee la nagu aababiyo diyaar baan u nahay Jabuuti Soomaha maanta madaxweyne maaha halkan maalinta anagu aanu u aktifsaneen Soomaali weynimada عيار هو كذا عيار اسماعيل مرقيه هايسكو كان شنتي الصومالي احمد بن waxaan leenahay jijigaan noqonaysa Itoobiya laba jeer baan lagu dagaalmay si wadka lagu soo dar lahaa distoorkoodan uu sheegaya in kila kii doonaya inuu ka bixi karo halaga qaad hafti ha soo galay anaga markaas ku darsamina markaas ay Soomaali weyn imanaysa laakiin Soomaaliya weyn ma shanta xidigood ee geeska wartaas sidoo kale waxa uu si kale u cambaariyay odayaal dhaqameedyada iyo salaadiinta ay soo faragelinaya siyaasadda Somaliland isagoo markale ka hadlayeen waxa uu yiri waxaan maanta Somaliland 30 sano ay institutionaasi isku jirtay maanta kale inay hadlaan ahayn arkin maysid caaqil amba suldaan deegaankiisa ka hadlay oo kale deegaanka iskuul male wada male biyo male dhakhtar male ka maqlimis waxa laga dhigtay suldaanimadii inta cumaamada iska qaato la yiraahdo suldaan hebel baa noqonay aan xilkiisa qaadi kareen inuu ka dhigto platform oo siyaasad iyo qabyaalada kala saaraysa oo ku sameeyo marka waxa weeye anu marka waan soo sheegay marka ordinay shaqin laga soo saaro ha ku eekaadeen aqalkii suldaanku arinta reerahooda iyo reeraha kala u dhaxeeya deeyooyinka iyo magahayo eelafin maxay ka qabteen xaqama qab inta socotay وشغل صالادينته waxaa leeyahay wadahadalka Soomaaliya maxaa khusaya institutions bajir madaxweyne ajir executive bajir darmay maqabaal istilaamay waa dawlad baan la dagaalanay dawlad way baaburtay 2012kii tiibaan la bilaabnay labadii intitaa wada hadlaya xagee ka soo geliya marka waa dadku dariiqooda kala qaataan ba weey ugu dambeyntii waxa uu carabka ku dhiftay sida bulshada Somaliland ay u dhayalsanayaan caabuqa coronavirus oo si baani ugu faafayo gudaha dalka Soomaaliya ونوع علينا دتكم تودي أدين سومالي قبيلة والعرق الصام إنجليز كما قحبة فريان ولا تاجرين
imaaraadka qaar bay ugu qosayeen markaan soo masaafirna Soomaaliya amarkii bay qaadan waayeen marka waxa weeye waxaan dad kula talinaynaa qofka soo naftaada ilaahay wadiga arkay imka aniga kii afgaanistan kii ciidamada xafiiska ay soo galaan saddex qof ka badan ay soo galaan fiiri waxa la yiri difaaca uu weyn waxa weeye qof dib naftiisa difaaca oo ay solution kala oo la kala fogaada inay tabartiin oo ogtiin marka waxa leenahay idaacadaha lagu kordhiyo civil society culimadiinka asxaabta waa inaan dadkan wacyi gelinaa oo gaarsiinaa wax allaha u naxariistay waxaa cisbitaalka Martiin ee magaalada Muqdisho ku geeriyooday wasiir dawlihii wasaaradda cadaaladda Hirshabelle xildhibaan Khaliif Muumin kaasoo muddooyinkii la soo dhaafay ku xanuunsanaa gudaha magaalada Muqdisho isagoo la xanuunsanaya caabuqa coronavirus geerida ku timid mas'uulka ayaa waxaa warar sugan 24 ugu warbixiyay wasiir dawlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabelle mudane Muxyidiin Mukhtaar Macalin isaga oo ka hadlayana waxa uu yiri ما كنت هاي مركور بها نحرست ولكن شربان وزير خليف مؤمن وكنتي دقيقة كبيرة مقاعد مقدشو سبتال مستيني وكنتي مالمهان لغوية تعالى حالتي سعافمات حلوان كوا أوكيريوذي وحون أوكيريوذي أوضر كان كوفيد 19 وانت حقيقين هنا إن أوكيريوذي لمركز أوكيريوذي أوضر كاس xildhibaanka goorme ayuu dib ugu soo laabtay maamul goboleedka Hirshabelle ما كنت هايستار حلوانك 15 مارس ayuu wuxuu ka yimid magaalada Muqdisho isla markaasna oo qayb ka ahaa team uu madaxweynaha hogaaminayay xildhibaanka calaamadihii cudurkan waxay ka soo muuqdeen koodii ilaa xalida 3 bishan kadib wasaaradda caafimaadka ayaa hore usoo wargeliyay in maxaa la yidhahdaa xildhibaanka oo calaamadihii COVID-19 lagu garan ogaa qeybo kamid ay kasoo muuqdeen wasaaradda tiimka ugu xilsaartay ayaa maxaa la yidhahdaa ka shaqeeyey isla markaasna u waday magaalada Muqdisho bishan maxaa la yidhahdaa 7 bisha runtii 3 maalin asagoo ku karantiilan isbitaal Martiin ayaa waxaan helnay natiijadii in cudurkan oo laga helay xildhibaanka runtii waa hadda 2 maalin ka soo wareegtay markii uu soo wariyay in cudurka uu qabo geeridiisa xildhibaanka iyo doon hadistay marxuumka ayaa noqonaya qofkii labaad ee cudurka coronavirus ugu geeriyooda gudaha magaalada Muqdisho sargaal hore ugu tirsanaa ciidamada dalka Bangladesh ayaa dil lagu fuliyay isagoo loo haystay dilkii madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkaasi sanadkii markii uu ahaa 1975 Abdulmajid ayaa toddobaadkani lagu deldelay caasimadda Dhaka ee dalkaasi Bangladesh kadib markii laga diiday codsigiisa ku aadanaa xukunka lagu xukumay waxaa la xiray maalintii Talaadadii ahayd kadib markii 25 sanadood uu ka baxsanayay xukunkii dilka ahaa ee loogu haystay dilkii Sheikh Mujibur Rahman waa aabaha dhalay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Bangladesh ee haatan talada haya Sheikh Hussaini waxaana la dilay xilli afgambi militariga ee sanadka markii uu ahaa 1975 isaga iyo waliba qaar kale oo ka tirsan qoyskiisa geerida Sheikh Mujibur Rahman ayaa timid 4 sanadood kadib markii dalkaasi Bangladesh xurriyadda uu ka qaatay dalka Pakistan Abdulmajid ayaa gudaha dalkaasi ku sii noolaa dilkii madaxweynaha kadib balse waxaa la aaminsan yahay in uu dalka India u cararay sanadkii markii uu ahaa 1996 oo ay ahayd xilligii ra'iisul wasaaraha imika talada haya ahna wiilkii uu dhalay madaxweynihii hore ee Sheikh Hussaini uu qabtay talada dalkaasi dawladda ayaa gaashaanka u daruurtay sharci difaacaya dambiilayaasha dilay aabaha dhalay ra'iisul wasaaraha imika talada haya kuwaasi oo ahaa Majid iyo 10 kale oo ka tirsanaa militariga dalkaasi ayaa sanadkii 1998 dil lagu xukumay maxkamadda ugu sareysa dalka Bangladesh ayaa sanadkii 2009 taageertay xukunkaasi waxaana 5 ka mid ahaa dambiilayaasha la dilay xilligaasi Mr. Majid ayaa la xiray kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay bishii aynu soo dhaafnay dalka Mareykanka ayaa horkacaya oo wajahaya wajigabax aad u xoogan kadib markii uu aad ugu faafay caabuqa coronavirus oo ka mid noqday dalalka hogaaminaya dadka ugu dhimashada badan ee caalamka
waxaa adduunka aad looga hadalhayaa faafitaanka ee Maraykanka uu ku faafayo iyadoona hay-adaha caafimaadka ay aad uga digayaan khatarta uu leeyahay cudurkani iyadoo la sheegay dadka Maraykanka ee u dhintay ay u badan yihiin dadka madowga ah ee dalkaasi u soo haajiray taasoo lagu micneeyay in aysan u hoggaansamin awaamiirta ka soo baxaysa waaxda caafimaadka iyo dowladda Maraykanka. warka iyaga ee dunida maantana intaa ayaan ku soo koobayaa. wararkaasi iyo warar kalena waxaad kala socon doontaan barnaamijyadeena dambe. haddaad ku cusub tahay channelkan subscribe dheh, waxaad ka heli doontaa wararka gudaha iyo dibadda oo fara badan. sidaa iyo nabadgelyo.